السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان قيارته سو دواada waa mar kale iyo barnaamij kale barnaamijkeenan maanta insha Allahu tacaala waxaan kaga hadli doonaa arrimaha siyaasadda dalkan Mareykanka gaar ahaan guushii weyneed oo ay ka gaartay Ilhaan Cumar aqalka hoose ee Congress-ka dalka Mareykanka kadib mooshin ay ka keeneen xisbiga Jamhuuriga haweeney hogaamisa oo la yiraahdo Nancy Mace aan ku bilaabay haddii aad nagu cusub tahay subscribe to the channel haddaa hore noola joogtay like and share the video waxaa shalay la soo bandhigay mooshin looga soo horjeedo Ilhaan Cumar in looga saaro labada guddi ee ka tirsan tahay aqalka hoose ee dalka Mareykanka kuwaas oo kala ah guddiga budgetka ama dhaqaalaha iyo guddiga waxbarashada ee educationka labadaas guddi ayaa waxaa la damcay in laga tuuro kadib mooshin ay ka keentay haweeney ka soo jeeda gobolka South Carolina oo lagu magacaabo Nancy Mace ayaa iyadu waxa ay sheegaysaa ama ay dhibsatay hadallo ay sheegtay in ay Ilhaan kaga hadashay kadib dilkii loo geystay Charlie Kirk meediyaha ay marisay Charlie Kirk ayaa isagu waxa uu ahaa nin firfircoon oo dhalinyaro ah oo u soo baxay xisbiga Jamhuuriga waxa sidoo kale uu aad uga qayb qaatay campaignadii uu ku soo baxay madaxweyne Donald Trump kadib dilkiisii ayaa waxaa waraysiyo ay bixisay Ilhaan ama su'aalo la weydiiyay waxa ay kaga jawaabtay hadallo aysan jeclaysan qolyaha Jamhuuriga ah ee Congress-ka kula jira arrinkan ayaa waxa uu dhaliyay in la keeno mooshinkaas oo ay Nancy Mace ku tashanaysay ama uga fakaraysay in Congress-ka ay ka haysato majority ama badnaanshada codadka ugu faraha badan oo labada aqalba iyada hadda ay controlaan ayna u fududaan doonto in Ilhaan ay ka tuurto labada guddi ee guddiga waxbarashada iyo guddiga ay ku jirtay kale ee budgetka kadib markii cod la geliyay arrinkaas isaga ah oo shalay cod loo qaaday mooshinkaas waxa Ilhaan ay ku baxsatay dirqi iyo farafiidood kadib markii codka uu ku dhamaaday 213 iyo 214 marka waxa ay ka heshay waa la yiri dimuqraadiga codadkoodii oo dhan waa ay heshay waxaase ku soo biiray afar xisbiga Jamhuuriga ah kuwaas oo sheegay in ay ka codeeyeen mooshinka ay wateen qolyaha iyaga oo isku xisbiga ay yihiin Jamhuuriyiinta ah afartan qof ayaa la weydiiyay sababta ay Ilhaan u badbaadiyeen waxaana ay sheegeen in ay waxa ay badbaadiyeen aysan ahayn Ilhaan Cumar ay tahay hadalka in xorriyatul qowlka qofka inuu xaq u leeyahay in uu wuxuu rabo uu ku hadli karo taas oo ay dhigayso qodobka koowaad ee dastuurka dalka Mareykanka ee First Amendment-iga oo waxa la yiraahdaa freedom of speech marka waxa aan u hiilinaynay waxay yiraahdeen waa xorriyatul qowlka ee ma aha Ilhaan Cumar waxa aan u hiilinaynay ayay yiraahdeen waxa sidaas la mid ah iyadana si farxad leh Twitter-keeda ama X-keeda ku soo qortay Ilhaan oo iyadu sheegtay in ay ku faraxsan tahay sida ay u garab istaageen saaxiibadeed kala tirsan Congress-ka ama aqalka hoose ee dalka Mareykanka haddii aan ku sii socdo marka arrinkan guushaas ay gaartay gabadhaas kadib waxa soo qaatay isna mikrofoonka ama Twitter-ka soo qaatay madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ama dalka Soomaaliya boqolkiiba 70 dadka Soomaaliya ku nool yihiin faqri cadaawad col iyo ma jiro buu yiri madaxweyne kama jiro maamul kama jiro dawlad kama jirto dalka Soomaaliya wuxuu dhahay waa nothing wax ka jiro haba yaraate ma jirto ayuu soo qaatay waxa sidaas oo kale uu ku nuxnuxsaday in uu yahay dalkaas colaad burcad badeednimo iyo violence ama rabshado baa ka jira wax kale oo ka jira meeshaas ma jirto marka arrinkan ayuu waxa uu ku sheegay Ilhaan ayuu rabay in uu hadalkaas ku xanuujiyo oo uu sheegay in dalka ay ka timi uu yahay total anarchy wax la yiraahdo ama dal aan waxba ka jirin ayadana waxay rabtaa halkan inay noogu sheegtay buu yiri sida dal ama dawlad loo maamulo dalkeedii baa dawlad la'aan ah dalkeedii baa madaxweyne la'aan ah dalkeedii baa waxa ay waxba ka jirin oo ciidamo aan lahayn oo amni aan lahayn oo dhaqaale aan lahayn wax aan musuqmaasuq ahayn oo dhaqaale ah oo ka jiro ma jiro talow madaxweyne ma leh dawlad ma leh waxaan ma leh madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muxuu ka oran doonaa haddii uu Ilaahay idmo
wax jawaaba hadda isaga baan ka sugi doonaa inuu kasoo hadlo hase yeeshee ilhaan hadalka ay ku haystaan marka haddii aan idiin galo waxa waaye laba su'aalood oo la weydiiyey ayaa jirtay waxaa ka mid ahayd markii aqalka hoose ee Congress-ka ninka odayga ah ee la dilay ee Charlie Kirk uu la damcay in loo sameeyo waxa loo yaqaano duco loo duceeyo waxa ay dadkan inta jooga aqalka waxa la sameeyay wax la yiraahdo moment of silence oo ah hal daqiiqo oo aamus ah oo qof walba uu niyadiisa uga duceynayo qofkaas dhintay ama la dilay haddana Republicaanka ama Jamhuuriyiinta ayaa waxa ay codsadeen in duco kor ah loo qaado in la sameeyo marka Ilhaan iyo group ay ku jirto oo dimuqraadiyiin ah oo liberals ah ama progressive qolada la dhaho baa ka soo horjeestay arrinka isaga ahaa oo buuq ku furay waxay yiraahdeen ninkan wax specialty ah extra ah oo uu leeyahay ma jirto su'aashii markii la weydiiyay maxaad u diideen Ilhaanay in ninka odayga ah ducada kor loogu qaado ayaa hadalkaas waxa ay tiri weligay ma arag qof Congress-ka dhexdiisa kor loogu duceynayo marka daqiiqadiisii waa la siiyey qof walbana maskaxdiisa niyadiisa uga duceeyay marka waxba kagama duwana dadka kale hadalkaas bay tiri hadalkaas ayaa lagu qabsaday hadalka kale oo ay ku qabsadeenna waxa uu ahaa mar iyadana la weydiiyey in ay sheegtay in ninka odayga ah la dilay uu ka soo horjeeday in laga sheekeeyo taariikhda dadka madow maadaama uu inkirsanaa bay tiri maalinka loo asteeyay maalinka holidayda ama loo dabaaldegayo dadka madow iyo oo loo yaqaano Juneteenth ama maalin bisha June 19keeda oo loo yaqaano maalinka loo asteeyay maalinka gumaysiga iyo adoonsiga iyo dadkii madowga dhibtii ay soo mareen in lagu xuso maalinkaas ayuu ka soo horjeeday bay tiri marka arrinkan waa arrin intii uu noolaa uu sheegay iyadana way soo reference garayso waxay tiri ninkan arrimaha dadka madow ayuu ka soo horjeeday so arrinkaas isaga ah hadalkaas iyo hadalkii ahaa wuxuu dadka kale kaga duwan yahay ma jirto marka Congress-ka macal madaxweynayaasha iyadoo kor hata ducada loogu qaadayo markay dhintaan ma arag labaad hadal ayay eersatay waxaana isku dayeen Jamhuuriyiinta in ay ka tuuraan labadaas guddi oo ay ku jirtay labadii guddina codkii ay geliyeen mooshinkii isaga ahaa shalay way kaga guuleysatay taas ayaana keentay in madaxweyne Donald Trump uu hadalladan adag uu kula hadlo Soomaaliya iyo dowlad la'aanteeda iyo barcadbadeednimadeeda iyo musuqmaasuqeeda tolo waxa uu sheegay kulay waxba ka jiraan laakiin waa arki doonaa insha Allah taala meesha ay ku dambayso laakiin Ilhaan hadda maanta waa faraxsan tahay waana ku guuleysatay arrinkii isaga ahaa inta ayaan rabay inaan idinka dabageeyo siyaasadda arrimaha dalka Mareykanka ka socda right now waa mahadsantihiin